arrintii igu yaabka badnayd waxay ahayd mar sagaashameydii waxaan ku noolaa meel la yidhaha India Delhi islaan jeans dhakab ku ah oo afro madaxa u yahay Canada waxay ka keentay 4 cunug ilaahu khayr ku sii hooyo Soomaaliyeed way khayr jecesha maxay raadineen dugsi iyo meel qur'aan lagu barto ayuu qaawan tahay waa inaad wax kasta aad taqaanaa lianna adigay berri waxay kuu noqonaysaa hub waxay kuu noqonaysaa raxma waxay kuu noqonaysaa wax aad ummadii aad ku tadriibin kartid ku tarbiyeyn kartid kuna gaari kartid falaax aad ku gaari kartid iyo liibaan waxaa kaloo jira ardayda lacala kan waxaa qaas u ah gabdhaha macallimiinta galaaska aad wax baraysid isku mid ma aha ardaydu waa kala meel waxay ka yimaadeen guryo kala duwan waxay ka yimaadeen bi'ooyin mukhtalif ah waxay ka yimaadeen dhibaatooyin kala duwan mid barwaaqo ku nool yahay midna waa dhiban yahay markaan taas leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalinyara timid markay u yimideen nabiga ayagoo islaamkii baranayo wuxuu ka dareemay in hilow hayo hilow waa taqaaniin anaa waalidkood lama joogaan markaasuu la fariistay mid ayuu su-aal u weydiiyey gurigaada yaa jooga yaa kula jooga maxaad ahayd yaa ka soo tagtay waalidkiin ka warrama markuu wada ogaaday kulli marka uu u dhameeyay dowradii waxbarashadii intii qaadan kareen uu yiri gurigiina marka u noqotay kula noqda islaamka oo bara salaada qofkiina ugu weyn hadujiyo waa xadiid caan oo la wada yaqaan halkaas maxaan ka qaadanaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu aalnaas gareeyay ardadii wajiyadooda inuu akhristay hadda asaga waxyigaa ku soo dagaayaba laakiin annaga maxaa xadiiskaas aan ka baranaynaa inaad ardaydii aad fiirisid lianna ardayda aa hayso waxaa laga yaabaa mid America laga soo musaafiriyey mid Raashka laga soo musaafiriyey mid Xamar laga keenay mid Hargeysa laga keenay mid reerkiisii inta la joogo barwaaqa ku dhex jira mid dhiban mid guriga lagu dilo mid ana mujtamac kala duwan ayaa isku haysa waxaadan rabtaa wixii adiga ka soo baxay oo darsiga isku si inay u qaataan oo berri ay ku najaxaan حياة الدنيا وحياة الآخرة من مركا أما قبر أيضا امتحان كلا كل حجرته ماشي بقولتمد وقتك كله من ساد تنبيه السينة إسا غفلة بكل حجرته وين مركورت كلا وقعتها يا ديار وآه يا ديار وآهن عرفتك أتكلا وقعتها وقتها cunug walba background check waxa ay Amerikaanka iyo wax dhahaan adigana background check sabiis sida nabigu uu sameeyay calayhi salaatu wasalaam aad ogaatid cunugan laana berri haduu wax baran waayo mushkilada haysato inaad la xalisid Soomaalida waxay dhihi jireen macallinku waa waalidka labaad qoloyinkan hinduuga oo asnaamta iyo waxa caabudaan waaba kasii kori mariyaan macallinka guru ay dhahaanba waxay u ictiqaadaanba inuu ilaahay ka sokeeyo wax yar ay ictiqaadsan ilaahay ana shirkigaas fa nacuudu billah laakiin darajo weyn siiyaan macallinka annaga hadda macallinkii ma dhihi karnaa waa waalid maba ka warqabnaba caruurti macallimiinteeni hore cunuga baahan cunugan baahnin waa ogaayeen adiga waxa laga yaabaa inuu saaka ku yimid laakiin aadan ogay inuu soo quraacday in kale waxaad ogtahay habaydo guri ma sha Allah ku nool yahay reer xoolo leh inuu ku dhex nool yahay laakiin wixii hoose aadan ka warqabin marka la fariiso ilmaha si tartiiba tiqa ka raadi ardaygaaga markuu tiqa ka helo
si tartiibaad qalbigiisa u hanan kartaa. markaad qalbigiisa hanatid waxbaad ku shubi kartaa. waxaad ku shubaysidna waxay tahay cilmiga aad soo baratay, islaamka aad tadbiiqinaysay, wixii oo dhan. lianna waxaasoo dhan aniga adiga kan baranayo kulligood maxaa looga baahan yahay? lianna diinteenna ma aflixaysa ilaa inay ikhlaas tahay maahan. adiga ikhlaas, adiga kaama ahan lacag ku raadi, kaama ahan waxay cilmiga aada baraysid berri saddexdii nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay oo ah qofka camalkiisa waa go-a ilaa talaata soo lama dhihin. cilm yuntafacu bihi inuu kuu noqdo rabta aakhiro, lianna kaa dhashay inuu berri allah u naxariisto kusoo dhiiraaba laga yaabaaba. laakiin dadki hal aaya haddaa bartid aayaddaas inaad berri u baxsataa laga yaaba. marka dadka aada wax baraysid, qof weyn ha ahaado qof yar ha ahaado, tiqa kalsooni horta meeshii aad biadaas bia kalsooni inay hesho. weligaana qofka ha xisaabin. dad waxaa jiro ilmaha ku xisaabiya waalidka dhala fiiriya. hooyo waxaa laga yaabaa deema shaqo ku lahayn inay ku keensato cunug. arrintii igu yaabka badnayd waxay ahayd mar 9 waxaan ku noolaa meel la yiraahdo India, Delhi. islaan jiinis dhakab ku ah oo afro madaxa u yahay Canada waxay ka keentay 4 cunug. ilaahu khayr ku sii hooyo Soomaaliyeed way khayr jecesha. maxay raadineen dugsi iyo meel qur'aan lagu barto. ayuu qaawan tahay waa 9 hadda 9 iyo 8 Soomaalida sida u xijaabantiin uma xijaabnayn. ilaahay khayr ha ku siiya. markay timid gabar wadaada ila joogto waxay tiri inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. ayadaba u baahanay tiri inay wax gacantan qabto. bal sug anagu dhihin waa kula raadinaynaa. macallimiina la raadinay, waa magaaladay soo degtay. waxay tiri aniga waxaan u soo guuray inay ilmaha qur'aan bartaan. kasaal khayr allah ku siiyo, niyadaadana allah ku yeelo. hadda gabadhaas tafsiir ay bixisaa, tafsiir ay akhrisaa. lianna maxay ahayd niyadeeda islaam jacayla ku jira. islaamka keliya xijaab ma aha. markaa dhahay sax xijaabka waa maxay shacaa'irta ugu weyn, walxamdulilah maanta in ahaysan. laakiin tan walaasha oo weli xijaabka haysanin u gargaar. nabiga muxuu yiri ansur aqalka zaaliman aw madluum. marka adeegii wax baratay aan lagaa rabaa taasoo kalena hadday ilmo kuu keensato inay dhaqankaaga inta aragto islaamka ay tiraa berrida iyo bar ay ku dhacdo. gabadhaas waxa bedelay waxay ahayd ducaa wiilkeeda barnay. gurigu la tegay, dhagaysa qisada. gurigii markuu la tegay ducada musqusha ahayd. allahumma inni a'uudu bika min al-khubuth. wuu garan waayay intuu ula yimid oo yiri hooyo maxay ahayd? say tiri ma aqaana suusug. Soomaali ilmaha hadda jiro macnaa waa challenge, waa aakhir zaman. sugsug yiri aniga Canada ku dhashay dhahay, adiga Soomaaliya ku dhalatay, muslina soo ahayd, bi'a muslina ku noolay. ducadaan ma kasaysid anoo ka imaaday western maxay igu qasbaysaa duubo dhiga meesha. subaxdii noo timid waa noo sheegtay waxaan ku dhahnay weli xijaab ma wadato la baro. challenge dambe uu kugu sameeyay aad ay uga calool xumaatay inay cunugeedii macnaa kelmadaas adiga lagaaga baahan yahay dhahay. waayo adiga iyo asaga waa u simantihiin. qur'aanka adiga isbar meeshaas ka bilowday horta. barakallahu fiikum. waxaa uga dan leeyahay waqtiga ilaa idinka dhumiya ma ahan in aad bi'ada aad ku nooshahay aad fiirisid, taariikhdeeda inaad barato. lianna mas-uuliyada ku saaran. macallinaa noqday haddaad tiri ogow yowm alqiyaama zumrat ulculamaa ku jirta. taasna darajada lagu gaarayo ma sahlana.
waa lagu weydiina qofka saa wax u bartay cilmigaadi muxuu ka ahaa marka baaraka allah fiikum aan hubka qaadano oo ah in aan kow aadaabta islaamka la imaano kayfa kaana rasuul sala allahu calayhi wasalam markuu weyse qaadanayo weyse qaadkiisi weyse qaadkii muxuu ku buraaya salaadii maxay ku buraysaa soonkii muxuu ku buraaya raxmaddu maxay tahay akhlaaqdu maxay tartaa waxaasoo dhan aan loo